مرحب 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 يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صلاة قيامك سجود الله مركلة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. كسو دبادة برنامجك رمضانك ما أنتنا وحن قادنينا قيبت السدحات برنامجك وحن سوجي إذنيا شيخ مصطفى حاج إسماعيل هارون كفايدة ونكسن واحد مداينا وينو عكسي قول رقني oo bishiiba laga dhigay bil cunno ramadaan baa soo galaysa leeyahay guriga oo dhan wada cunna laga dhigaya haweenayda guriga joogta shaqo kalaba ma qabanaysa waaga barigiisa ilaa gabalka dhiciisa cunnuun bay wadaa cunnuun baa la sameynaya waxay ahayd inay cunnadu yaraato waayo nabigu salawaatullaahi wasalaamu calayhi marka hore wuxuu inoo sheegay cunnadan badani marka horeba faa'iido ma leh ramadaan iyo hayru ramadaan toona caafimaad uma fiicna caqli uma fiicna waxbarasho uma fiicna meel laba kuma wanaagsana cunnadu hadday badato qofku markuu dhergo wuu luloodaa wuu caajisaa wuu seexdaa dadba cidda kasii hurdo badan yihin bay kasii cunno bataanuun markaa qiimo ma samayso haddaad doonayso inaad wax qabsato soo jeedid waa inay cunnadu kugu yaraataa arday fiican haddaad rabto inaad noqoto waa inay cunnadu kugu yaraataa waa inaad marna caloosha buuxin wax cun oo hagaajoon laakiin marnaba waa inaanay caloosha buuxin sidaa awgeed buu nebigu wuxuu yidhi maa mala bnu aadamu wicaa'an sharan min batni reer nebi aadam weel ma buuxiyo calooshiisa ka shar badan buu nebigu leeyahay bal xadiiskaa u fiirso reer nebi aadam weel ma buuxsado calooshiisa ka shar badan buu nebigu leeyahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh sidaa awgeed buu nebigu wuxuu yidhi war haddaydan kollayba cunno daynaynin faluqaymaatun yuqimna bihi salba haddaydan kollayba cunno daynaynin war waxoogaa hurmooyin oo aad dhabarka ku toosisaan buu nebigu leeyahy hagaajoon laakiin dheregtu waxba ma tarto ramadaan marka iyada inaad gaajootaabaa fiican inaad gaajada dareentaabaa wanaagsan inaad dhergin afurka iyo casho marka laysku daldalaa salaadba la tukan kari waaya mid sunnada iyo faralka xataa dadka ku cidhiiri ku noqota waxay ahayd qofka muslimka inuu fudud yahay oo uu ku talagalo siduu cibaado badan u samaysan lahaa bishan waxay ahayd sidii loo cibaadaysan lahaa inuu reerku u soo wada jeedo oo odayga iyo islaanta iyo caruurta iyo intuba loo dego timetable cibaadadu ku badato maaha timetable ama tiima bilaane ee cunnadu ku badato in reerku dego oo bishani dadka kaga kharash badato bilaa kale war ha ka kharash yaraato oo ha ka cibaado badnaato oo ha ka loo baahan yahay waxaa loo baahnaa buu nebigu leeyahy salawaatu ullaahi wasalaamu calayh bisha tan qofka muslimkii inuu qaato training ah inuu baro naftiisa inuu xakamayn karo imika waxaa laga yaabaa haddii heblaaya kula hadashay haddii lagu yidhahdo inaad cadhays madax marto heblaayaba ku hadal haysay haddii lagu yidhahdo inaad laba casho seexanin haddaad aragtana inaad dawaqdaba nebiguna wuxuu leeyahay haddii xataa ay kula dagaalamaan ramadaan waxaad ku tidhaa wa in imra'un qaatala buu nebigu yidhi haddii qof kula dagaalamo aw shaatama ama uu ku caayo falyaqul inii saa'im ha yidhaahda buu nebigu yihi laba jeer dhe inii saa'im culammadu waxay yidhahdaan inii saa'imta hore waa tadkiiran linafsik baa la yidhi inaad adigu isxasuusiso inaad cibaado ku jirto aanay cibaadad kaa xumaanin inii saa'imta labaadna waxay yidhahdaan waa tadkiir xasuusin walaalkaaga kale muslimka aad xasuusinayso isna inuu cibaadaysto oo uu ku dhaafo xadiidku wuxuu sheegayaa ramadaan haddii lagula dagaalamo ha dagaalamin haddii lagu caayana ha caytamin innaga waxaad moodaa inaad cagsiga tahoo lagu leeyay wuu soomanaayo cadhunbuu muraaro dilaacay qofkuu sooman yaha hala hadlin in lagu idhaahdo war qofka sooman waxayd inuu dadka ka deganaashiiye badan yahy ee inuu isagu ka neerfasan yahay ama ka cadho badan yahay ama ka kulul yahay may ahayn walidaalik soonku waxay ahayd inuu qofka baro waa madrasa ama waa dugsi laga barto nafta sida loo xakameeyo waa bil la rabo markaa qofka muslimkii inuu barto inuu naftiisa xakameeyo oo walaaladii oo dhan iska saamaxo oo cafiyo oo aan hebel baa ku xamanayay iyo hebel baa ku caayay hebel baa ku maagay aanay adiga waxba ku yeelin sidaa awgeed buu nebigu wuxuu yidhi haddii lagu maago ama se lagula dagaalamo waxaad tidhaahdaa waan soomanahay waa bil la rabo qofka muslimka ahi inuu badsado aqoonta iyo waxbarashada iyo waxbixinta dhammaanteedba inuu badiyo waa bil lagaa rabo inaad dacwo badan samayso
oo cilmiga wuxuu sadaqadiisu waa sheegidda iyo dadkoo la baro. qof waloo idinka midiba in buu garanayaa. in badanoo aan intaa garanaysaan garanayn baa joogta magaalada, oo rag iyo dumarba leh, oo caruur leh, oo cid walba leh. in badan baa joogta magaalada aan sida loo tukadaba aqoonin. in badan baa magaalada joogta aan aqoon waxa salaadu ku asaxdo. in badan baa magaalada joogto si janaabo la isaga maydha aqoonin. idan waxay ahayd intaa dheertiin dadka inaa u sheegtaan, weliba gaar ahaan bisha tan inay noqoto qofka muslimka inuu cilmiga gudbiyo, xoolaha gudbiyo, gacantiisu ay furraato. bisha tani waa bil sadaqo. si awgeed buu nebigu wuxuu yihi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh, waxaa lagu tilmaamaa kaana rasuulu llaahi ajwada annaasi bilkhayr. horta ugu horreyn waxaa la yidhahdaa nebigu dadba waa u deeq badnaa. nebiga dee deeqdiisa waxaa kaaga filan in la yidhi weligii wax la weydiiyey mayba ma odhanin. adigu weligaa wax lagu weydiiyey maya ma tidhi. yacni waxaa laga yaabaa 90% may markaynu idhaahno 10% inay haadeenu tahay. nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wax la weydiiyeyba maya ma odhanin, waxbaba ma diidin. xataa hadduu isagu waayo wuxuu isku dayay inuu cid kale ka siiyo. dabeetana waxa la idhaha wa kaana ajwad maa yakuun fii ramadaan xiina yalqaahu jibriil wa kaana yalqaahu fi kuli leyla min ramadaan fayudaarisuhu lqur'aan. waxaa la yidhahdaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuxuu ugu sii deeq badnaa oo khayrka ugu bixin badnaa bisha ramadaan, gaar ahaan marka uu jibriil la kulmo. bisha ramadaan jibriil baa ku soo degi jiray, dabeetana qur-aanka nebiga la akhriyi jiray, marka wuu ka khayr badnaa. waxaana yidhahdaan bishatan ajwad bilkhayri min alriixi almursala. khayrka wuu uga bixin badnaa hawada dhabata, yacni dabaysha babanaysa ama dhabanaysa, wuu ka khayr bixin badnaa nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh. idan waxaa lagaaga baahan yahay bishan inaad wax la baxdo, oo laba shay baa bishan fiican qofka muslimka inuu isku daro. wixii uu bixin karo inuu bixiyo, wixii uu wax cunsiin karana inuu wax cunsiiyo, isaguna inuu soo manaado. waxay dhahdaan bishan khayrkeeda waxaa ka mid ah adigu inaad isku daydo inaad cunnada iska yaraysidoo soontid, muslimiintana inaad quudisid oo cunnada bixisid. waa waxyaabaha jannada lagu galo. nebigu wuxuu yidhi inna fi ljannati ghurafa, war jannada guryaa ku yaalla buu nebigu yidhi, yuraa daahiruha min baatiniha, gudaha waxaa ku jira dabadiisa laga arko, yacni dhalooyin ka samaysan iyo wax la nooca. wa baatinuha min daahiriha, labada dhanba la iska arki karo. acaddaha allahu tacaala liman atcama aطacaama wa alaana alkalaama wa taabaca asiyaama wa sallaa billeyli wannaasu niyaam. wuxuu nebigu yidhi jannada khurafaadkan ka midka ah waxaa iska leh cidda dadka quudisa ee masaakiinta iyo dadka baahan iyo dadka muslimiinta aba wax siisa, hadalka jilcisa buu nebigu yidhi dabcisa.